بسم الله الرحمن الرحيم داوديال كسو دوادا wararkeena ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa la wareegay degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo markii hore ay al-shabaab ku xooganayeen degmada aadan yabaal oo ah degmo muhiim ah ayaa xuduud la leh gobolada Hiiraan iyo Galgaduud oo ah deegaanadii bilihii la soo dhaafay ay ka socdeen dagaalada u dhaxeeya shabaab iyo dadka deegaanadaas aadan yabaal waxay ahayd ubuucda kooxdan argagixisada ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana qabsashadeeda loo arkaa tallaabo muhiim ah oo ay qaadeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga General Abdullahi Ali Caanood oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in aadan yabaal ay uga sii gudbayaan hadda gobolada kale ee kooxda ku harsan yihiin hadalka afhayeenka ayaana muujinaya in aadan yabaal ay tahay halkii ugu dambeysay oo ka tirsan Shabeellaha Dhexe lagana qabsaday shabaab laba waxyaabood ayaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo fariin muuqaal ah soo diray ayaa ka hadlay qabsashada degmada aadan yabaal isagoo xaqiijiyay in goobtaas ay hadda ku sugan yihiin ciidanka dawladda Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal socday in ka badan 20 daqiiqo xooga ku saaray dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ayaa dhanka kale sheegay inuu labo arrin ka codsanayo shacabka laba waxyaabood oo aan maanta dadka Soomaaliyeed ka codsanayo waxay kala yihiin in ay adkeystaan muddada gaaban xanuunka gaaban qaraxa bay xagga dhigeen xitaa ayay miino dhigeen baabuur qarax ah ayay meel hebel joojiyeen in ay u dulqaataan oo ay adkeystaan isagoo hadalka sii wata ayuu yiri midda labaad dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa taxadar inaan u sheego shabaab waa Soomaali shabaab kalkaalku waa Soomaali waana dad la garanayo sifooyin gaar ahna leh laakiin waxaan dareemayaa ama suurtagal ah in dadka qaarkii ay ogaal la'aan shabaab ugu shaqeeyaan taliska howlgalka ku meel gaarka ah ee ciidamada midowga Afrika ee jooga Soomaaliya ayaa sheegay in ay gacan ka geysteen la wareegista magaalada aadan yabaal